videogu muhiimsanaa noloshaada. Videoga wuxuu ku saabsan yahay ragga shahwadooda ay soo degdegto, xaaskoodana qancin waayey. Dhibaatada ugu weyn oo ka haysato maanta kaa xalinaya. Kaliya waxaa kaaga baahanahay videoga inaad share garayso, like noo dhahdo, subscribe noo saarto. Kaliya intaas kaaga baahanahay. Let's get it. Marka ugu horeyso xaaskaada la kulmayso, number 1 waxaa sameysaa xaaskaada 10 daqiiqo, 15 daqiiqo, 20 daqiiqo kaligeed waqti la qaado. Intaasna waxaa isku daydaa marka ayada bashaalinayso mise dareemi kartaa. Waqtigaas waxaa sameysaa murqahaada ha xirin, murqahaada ha furnaadaan, relax drain. murqahaada oo xirto waxay keenaysaa in drainkaada si zaaid ugu kaco, biyaha inay degdeg kaaga imaadaan. Markaas waxaa sameysaa marka ayada la baashaalaysid 10 daqiiqo, 20 daqiiqo niyadaada ka saar inaa qof dumar ah la baashaalayso. Niyadaada waxaa gelisaa waxyaalo kala geli. taas waxay keenaysaa in shahwadaada ay soo degdegin. ayadana waxay keenaysaa waqtigaas aad la qaadatay inay biyaha soo dhawaadaan shahwadeeda. marka saas ugu tagtaanbo biyaha horey ka imaadaan ee qanacdo. number 2 shahwadaada haddaad rabtay inay soo degdegin, number 2 waxaa sameysaa filmaanta anshaxnimada madaawataa. hadday tahay filmaantaas maanta kabacdi ha daawanin. filmaantaas waxay dhaawacaysaa neerfahaada, nervous systemka, neuronka, jirkaada qaabka u shaqeeyo dhan ay dhaawacayaan. filmaantaas maanta kabacdi ha daawanin, halkaas iskadhig. you got it. number 3 waxaa sameysaa exercise. ma sameysaa? maya. hadday tahay exercise waa very important. waay exerciseka bilow, exercise samee, murqahaada dhaqaaji. shahwada ragga sidaa ogsoontihiin dhiiggay ka samaysantaa. shahwadaada marka waxaa sameysaa dhiiggaada kiciye, almiite, jirkaada ha shaqeeyo. the most important 2 meelood ugu muhiimsan haddaad rabto inay shahwadaada ay soo degdegin. caloosha dhis marka ugu horeyso. testosteronka ha ku dhisnaado. waxaan isku daydaa intaa exercise sameynaysid 30 second meelahaas oo kale mar walba xoogaa aad miitaysid caloosha inaa xirto adoo soo jiidaayo testosteronka caloosha xudunta dhankaas inta ka hooseyso dhan soo jiidaayo. isku day inaa exercise ka sameyso. number 2 exercise kale oo u baahanta waxaa waaye murqaha boodiyooyinka. adeegana the most important waa ayagana murqaha lugaha boodiyooyinka especially ayagana iska dhis. qodobka 4 aan kula wadaagayo asagana aad muhiim u yahay. qodobadan aan la wadaagayo mid kale ugu muhiimsan yahay. 4 qodob haddaa sameyso waa hubaa in shahwadaada ay soo degdegaynin, xaaskaadana qancin doontid. qodobkan marka aan galo, intaan gelin ka hore subscribe noo saartay, haddaa ilowday anaga xasin dhac noogu sii, wax lacag maahan. nambarka 4 cuntada aad cunaysid ayadana aaday muhiim u tahay. cuntada goorta aad cunaysid iyo goorta aadan cunaynin. cuntada aad cunayso horta waxaa ka dhigataa cunto borotiin leh, shahwadaada kordhinayso, muhiimku yahay jirkaada nafaqo siinayso. cuntooyinkaas waxaa kamid ah ukunta, qaraha, malaayga. kuwaas aaday muhiim u yihiin. cuntooyinkaas badso digirta oo kale. goorma cunaysaa marka cuntooyinkaas waxaa cunaysaa waqtiga aadan xaaskaada u tegaynin ayaa cunaysaa. ay sirarta adiga xaaskaada aadan ku kulmayn ayaa cunaysaa cuntooyinkaas. markaa la kulmayso maxaa sameynaysaa? aaday muhiim u tahay inaad fahanto. markaa la kulmayso xaaskaada calooshaadu ibire waa inaad la kulantaa. calooshaada buuxdo haddaad la kulanto sakino ay shahwada kaaga imaanaysaa. waxaa sameysaa calooshaada ibire u tag. waana mahadin doontaa videogan maanta idiin soo dhigay. good luck guys.